بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سلفانو فرق ودحيا وحيها accounting iyo finance accounting waa laba waaxood oo wada shaqayn ka dhaxaysa marka la joogo waxbarashada iyo ganacsiga, balse waxa ay mid waliba xoog saartaa shaqo u gooni ah wax waliba. sharaxadan kooban waxaan kaga hadlaynaa mid waliba waxa loo adeegsado marka la joogo shirkadaha iyo ganacsiyada. haddaan ku hormarno waaxda accounting, waaxdan waxa loo adeegsadaa ama ay tahay shaqadeeda diiwaangelinta, koobidda iyo warbixinta dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee shirkadda inta lagu guda jiro muddo cayiman. sidoo kale waxa ay diiradda saartaa bixinta macluumaad sax ah oo faahfaahsan oo ku saabsan howlaha maaliyadeed ee shirkadda. markana aan isla aragno qayb ka tirsan shaqooyinka laga rabo waaxda accounting, waxaana ka mid ah howlaha xisaabaadka ee maalinlaha ah ee shirkadda sida iibka iyo gadashada iyo qarashaadka ee shirkadda gelayso. sidoo kale waxaa laga rabaa waaxdan inay diyaariso warbixino maaliyadeed ee loo yaqaano financial statements sida income statement, balance sheet, cash flow. haddaan intaa isla fahnay aan markan isla aragno qaybta labaad oo ah finance. waaxdan waa ay ka baaxad weyn tahay qaybta accounting oo waxay la macaamishaa maareynta lacagta, maalgashiga iyo qorsheynta maaliyadeed si loo gaaro yoolal gaar ah oo kor loogu qaadayo qiimaha hantida ay leedahay shirkadda. sidoo kale waaxdan waxay diiradda saartaa sameynta go'aanada maaliyadeed si kor loogu qaado heerka maaliyadeed ee shirkadda ay taagan tahay, oo xilli waliba waxaa la rabaa sidii ay shirkadda ugu sii gudbi lahayd heer kasii sarreeya heerkii ay shalay joogtay. markana aan isla aragno walxa ka tirsan shaqooyinka ee waaxda financiga ama maaliyadda qabato. waxaa ka mid ah inay qiimeeyaan fursadaha maalgelinta, oo haddii lasoo qaadanayo qalab cusub ama lasoo iibsanayo miyaa u fiican shirkadda mase inay qalabkaas soo kiraystaan. sidoo kale waaxdan waxa ay qabataa inay maamusho qulqulka lacagta ee shirkadda si loo hubiyo inay shirkadda haysato lacag ku filan si ay u gudato howlaheeda. sidoo kale shaqooyinka laga rabo waaxdan waxaa ka mid ah marka la rabo in shirkadda ay samayso raising capital ama sare u qaadidda ra-sumaalka shirkadda ama qaab cusub ee lagu heli karo lacag, ma waxay noqonaysaa in lasoo saaro saamiyaal sida shares oo kale mise inay shirkadda qaadato dayn sida bond oo kale yaa u fiican shirkadda marka loo fiirinayo xilliga la joogo. marka gunaanad waaxda accounting waxa ay soo diyaariyaan xogta maaliyadeed ee shirkadda. haddaba xogta waxaa adeegsada waaxda financiga si ay go'aaman wax ku oola ee saameynaya shirkadda gaar ahaan maalgelinteeda ay u gaaraan. si kale haddaan u dhigno waaxda accounting waxa ay qabataa diiwaangelinta iyo maamulidda maaliyadda, halka waaxda financiga ay tahay qorsheynta maaliyadda iyo sameynta go-aanka saxda ah ee sare loogu qaadayo lacag helidda iyo maalgelinta ku habboon shirkadda. sidoo kale waaxda accounting marka ay diyaariso financial statement kadib, xogta ku qoran dukumentiga waxaa adeegsada waaxda financiga si ay go-aan uga gaaraan sida saxda ah ee loo meelayn karo kheyraadka shirkadda si loo gaaro horumar ballaaran. sidoo kale ballaarinta waxqabadka shirkadda iyo waa maxay ilaha laga heli karo lacag loo adeegsado maalgelinta iyo ballaarinta waxqabadka shirkadda. marka waxaan arki karnaa in labada waaxood ay qabtaan shaqooyin kala duwan misana is-dhammaystiraya ama iskaabaya, oo waax waliba way u baahan tahay jiritaanka waaxda kale. xog dheeraada oo ku saabsan financial statement fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo.